kooxda labaad ee dunida ugu xooga badan Manchester City waxa ay soo ciyaartay 3 kulan oo saaxiibtinimo. Kulankii ugu horeeyay waa laga adkaaday oo 3-4 ayaa lagu garaacay kooxda Celtic ayaana ku garaacday. sidoo kale kulankii xigay 28 bishan waxa ay la ciyaartay naadiga AC Milan taas oo kaga badisay 3 gool aan ka labo. sidoo kale xalay waxa ay la ciyaartay naadiga Barcelona taas oo ciyaartu ay ku soo dhamaatay 2-2 hase ahaatee penalty xilli dambe la ciyaaray ayaa ka yeelay Manchester City in laga badiyo oo lagu garaaco 4 gool aan ka hal. naadiga Manchester City oo aan wada ognahay awoodeeda oo ay u ciyaarayeen balaayarin waaweyn in 3 kulan oo saaxiibtinimo laga badiyo ma ku keeni kartaa carqalad bilaabashada Premier League. ku darso kulamada soo socda kulan saaxiibtinimo waxay la ciyaari doontaa Chelsea, kulan kale oo Community Shield ahna final waxay la ciyaari doontaa Manchester United. bilaabashada Premier League-na Chelsea ayay kula bilaaban doontaa. naadiga Manchester City aan wada ognahay awoodeeda ma ka dhigan tahay in bilaabashada Premier League ay Guudaro ku bilaabato maadaama in ay jilicsan yihiin la arkayo walow aysan balaayarintii waaweyneyd aysan u dhamayn. hase ahaatee kulamada saaxiibtinimo inta badan waxa lagu qiimeeyaa awoodda kooxda iyo heerka ay sanadan cusub horyaalka ay ka ciyaarayso waxa ay la imaan karto ayaa lagu saadaaliyaa. haddaba haddii aan adiga ku daayo maxaad u aragtaa ma in Manchester City ay mar kale ama markii shanaad oo xiriir horyaalka qaadi karto ayada oo season-kan cusub saan ku bilaabanaysa?